dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah waxaa la filayaa in heshiis la xiriira qodista shidaal la saxiixato shirkado ajaanib ah xilli shalay lagu waday in munaasabad lagu saxiixayo heshiiskaasi ay dhacdo balse dib u dhac ayaa ku yimid saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in munaasabad lagu saxiixayo xirmooyinka ceelasha shidaalka ee laga qodayo xeebaha magaalooyinka Baraawe iyo Hobyo ee Shabeellada Hoose iyo gobolka Mudug ay ka dhacdo xarunta madaxtooyada Muqdisho. munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk iyo madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaana dowladda u saxiixaya heshiiskaasi wasiirka wasaaradda batroolka Cabdirashiid Maxamed. warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu soo kordhay culays dhanka habraacyada loo marayo saxiixa heshiiskaasi iyo qaab loo waafajinayo arrimaha deen cafinta ee shuruudda hay-adda IMF waxaana arrintaasi loo saaray guddi oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda xukuumadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. shirkadaha loo saxiixayo heshiiska xirmooyinka balookiska shidaal qodista ayaa lagu kala magacaabaa Liberty Petroleum iyo Coastline Exploration oo horey loo oran jiray Som Oil Gas.